maanta oo ay tahay 26 bishii shanaad 2019 waxaan rabaa inaan halkan ka sii daayo war-saxaafadeed aan daba joogo war-saxaafadeed habraaca oo xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah kaas oo la xiriiray habka habraaca doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ama dowlad goboleedyada. sidaa darteed waxaan ku bilaabayaa dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay qabato doorashooyinka hordhac hanaan xor iyo xalaal ah ujeedaduna tahay in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka reer Jubbaland uu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto sida ku cad qodobka 25aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. haddaba qodobada 142 ama 142aad 120aad iyo 121aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka waxay si cad u qeexayaan xuquuqda dowlad goboleedyada sida hoos ku qoran. qodobka 142aad dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka jira Soomaaliya ilaa inta la gaarayo goorta dhammaan dastuurka dowladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinayo dastuurka dowladda federaalka ah iyo maamulada ka jira ka hor inta aanan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ahi waxa ay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo. dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa in ay la tashadaan marka la qaadanayo go-aan la xiriira nidaamka federaalka iyo qaabka nabadgelyada. qodobka 120aad hay-adaha dowliga xubinta ka ah hay-adaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa arrimo lagu nidaaminayo dastuurka maamul goboleedyada. qodobka 121aad mabaadi'da dastuuriga ah mabdi'iyan waa in la iswaafajiyaa dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay caddaynaysaa in ay u madax bannaan yihiin xallinta inay u madax bannaan tahay xilna ka saaran yahay in ay qabato doorashooyinka xor iyo xalaal ah doorashooyin xor iyo xalaal ah ee ka dhacda dowlad goboleedka Jubbaland. arrintaas waxa u xil saaran guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka asagoo raacaya qodobka 29aad ee dastuurka Jubbaland iyo qodobka 67aad farqadiisa afraad iyo habraaca doorashooyinka ee ku cad xeerka number 7 ee lagu dhisay guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka go-an inay ilaaliso sharciga gaar ahaan sharciga khuseeya arrimaha doorashooyinka. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeed siyaasadeysan kaas oo tilmaamaya in ay doonayso in ay farageliso doorashooyinka Jubbaland sidii horey uga dhacday dowlad goboleedyada qaar ayna ka dhalatay khasaarooyin naf iyo maalba leh mana jiro qodob awood u siinaya inay farageliso doorashooyinka dowlad goboleedyada. dowladda federaalka saxaafadeedkeeda waxay ku sheegtay in qodobka 46aad ee dastuurka qaranka uu tilmaamayo inay iyadu farageliso natiijada ayna si rasmi ah ugu dhawaaqdo qodobkana sidaas ma qabo
waxa uu sheegayaa in nidaamka matalaadda uu ahaado mid furan, in nidaamka matalaadda uu ahaado mid isku filan. arrintaasna waxay ku caddahay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. diyaar ayayna u tahay in ay ilaaliso dastuurka. sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay helaan shacabka Jubbaland xaqa matalaadda isku dheelitiran sida ku cad qodobka 22aad ee dastuurka Jubbaland. ugu dambeyntii, dastuurka dowladda federaalka wuxuu si cad u sheegayaa qodobada kor ku xusan in dowlad goboleed kastana uu ku dhaqmo xuquuqda uu dastuurku siinayo. wixii cawaaqib xumo ah oo ay keento faragelintaas sharciga baalmarsan waxaa mas-uul ka noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya. markaan intaa leeyahay waxa weeye habraaca ay dowladda federaalka tilmaamayso dowladda Jubbaland horey bay u samaysay, mas-uuliyadeediina horey bay u samaysay, guddigii farsamada iyo doorashooyinka horey bay u samaysay, xulitaanka dhaqanka iyo sida xildhibaanada loo xoreeyo habraaceeday ku qeexday. maanu garan marka war-saxaafadeedka xalay ka soo baxay wasaaradda wuxuu ku salaysan yahay. waxaanse anagu leenahay Soomaalida dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa dastuurkaas ayaanu rabnaa inaanu ku dhaqanno. waxaanu codsanaynaa dowladda federaalkuna inay ixtiraamto dastuurka dalka u degsan iyo midka dowlad goboleedyada u degsan.